waa dhismo casri ah isla markaana dacalka ku haya xeebta Lido waa hoteelka casriga ah ee Ilayd wuxuuna ka kooban yahay qaybo kala duwan wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir xubno ka tirsan rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa ka qayb galay daafurka hoteelka Ilayd kaasi oo ku yaala xeebta Lido degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ah milkiilaha hoteelka casriga ah Ilayd ayaa waxa uu ka hadlay istiraatiijiyadda maalgashi iyo shaqo abuur ee dhalinyarada oo u leeyahay hoteelkaasi haddii qof walba Soomaali oo $2 milyan ku invest gareeyay dalka dibadiisa wuxuu fursad u abuuray ama fursad shaqo siiyay dad runtii fara badan oo ajaanib ah maahan Samiir waa joogtaan u maleynaa halkan hadda ayadoo weli shaqaalihii la rabana aan la qaadan waxa ka shaqeysa 280 qofood waxa dhici karta haddii investment inta laag meel kale aan ku sameyn lahaa dadka Soomaalida ee ka qayb qaata ama fursadaha shaqo ka helay inay aad u koobnaan lahaayeen laakiin dalka gudihiisa markii la geliyo Soomaali fara badan ka helaysa fursado shaqo Basma Ahmed Amir Jaketi gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa dhankeeda boogaadisay dhismaha iyo furitaanka hoteelkaasi hotel qurux badan oo loogu talagalay magaalada Muqdisho inay bilicdeeda qayb ka noqoto haddaad aragtaan dal hormaraayo ama dal qurux badan ama dhibaato ka soo kabanayo waxaad arkaysiin dhalinyaro sida xildhibaanka oo kale uu istaaga dalka inuu wax ka bedelo aadan kaaga mahad celinaynaa xildhibaane inaan meeshaanaytii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee u daawasho joogaan inay qaarkood gudaha ku jiraan ayadoo loo musharaxadaynayo ama loo xafladaynayo furitaankan xildhibaanka uu noo sameeyay hoteelkan quruxda badan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay istiraatiijiyadda dalxiis iyo maqaam ee uu leeyahay hoteelka Ilayd ee laga hirgeliyay xeebta Lido degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho aan u mahad celinayaa runtii anoo ku hadlaya magaca dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee jecel dalkooda in la qurxiyo la maalgashado xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo hoteelkan qiimaha badan quruxda badan wax badan ku soo kordhinaya wajiga wanaagsan ee Soomaaliya dib u soo kabashada iyo dib u dhiska Soomaaliya hirgeliyay ee galabta halkan furitaankiisa aanu ka soo qayb galnay waxaan leeyahay xildhibaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii sidii dadkii iga horeeyay mas'uuliyiinta iga horeeyay halkan ay sheegeen galabta waa maalin kale oo muujinaysa waji wanaagsan iyo quruxda dalkeena iyo caasimadeenu ay leedahay goobta sidaan u qurxan iyo dadkan sharafta leh ee ka soo qayb galay ee labisan ee ka laga baabiyay wajigii burburka iyo foolxumada inuu dhamaaday Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okkey TV Universal magaalada Muqdisho